aad baa loogu farxay heshiiska concept ahaan waxaana ay dadku u arkaan in labaduba ay aad u sugayeen in heshiiskan uu dhaco oo sababtoo ah farmaajo wuxuu arkay doorkiisii oo meesha ka baxay maamuladii oo awoodii la wareegay marka saas darteed wuxuu ku qasbanaaday inuu ogolaaday wuxuu markii hore diidanaa sidoo kale ra'iisul wasaaraha dambay u ahayd oo marka waxaana muhiim ah hadda doorashada heshiiskaas ay shacabka Soomaaliyeed ku farxeen inuu miro dhalo inay ka shaqeeyaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo ka soo jeeda labaduba galmudug oo ay xaliyaan arinta galmudug taas ayaan aad u qabaa oo aan laga dhigin arrimaha for example hadda waxa uu noogu dambeysay arrimihii badda oo laga dhigay kiis ololo oo farmaajo ka dhigay madaxweynihii hore haddana waxaan maqlaynaa in ololo siyaasadeed laga dhigayo oo mashaariicda laga fulinayo hadday dhabowdo galmudug iyo hirshabeelle sidoo kale lacagtii yareed oo laga helay qadar markay dib u dhigeen beesha caalamku lacagtii marka waxaa habboon in arrimahan say dadku shacabku u soo dhaweeyeen ay noqodo shafaafiya oo conspiracy theory aan laga dhigin wax sax oo wanaagsan inta shacabka loo sheego in directly aan looga dhigin ayaan qabaa 2 years extension-kii ay shacabku diideen oo ay ka dhalatay in xamar ay ku dhawaato inuu dagaal ka dhaco marka shacabka Soomaaliyeed maamul goboleed walba wuxuu sugayaa in la raaco sharcigii loo daayay ra'iisul wasaaraha shaqadiisii aan qalalaasa kale dalka laga furin oo aan jabhaday wax la kicinin marka sidaan ugu farxnay kiiskii badda oo uusan farmaajo lahayn oo madaxda ka horeysay leeyihiin ayaa waxaan ugu farxeynaa heshiiskooda inaan haddana laga dhiganin conspiracy theory wax uu guul u ku leeyahay farmaajo ama rooble laakiin laga dhigo in laga dhabeeya galmudug nabad lagu soo dabaalo la dedejiyo doorashada oo aan la gaarsiinin sanad soo way hadda sanada ku dhamaaday waxa ka dambeeya muhiim waxa hadda dhacay way qof weyn baanahay waxa hadda dhacay wax ka muhiimsan waxa soo socda iyo wax ka dhalan karo marka intaas aan dhihi lahaa waana soo dhaweynaya qorqor oo aad ugu dadaalay heshiiskan oo inkastoo ay qalalaasa ay ka qabsatay galmudug uu tagay iyo lafta gareen oo isaguna guushi wixii ay soo wadeen guushi helay intaba si shacabka Soomaaliyeed u hambalyeynaya laakiin hambalyada kuma dheeraanayo waad arkaysan musharaxiintu ma istaan haldin lana qof walba wuxuu ka cararayaa madaxweyne farmaajo mar walba intuu heshiis galo ayuu ka baxaa marka waxa laga cabsanayaa haddana intaad faraxdo hadalka tago berina wixii laga baxo taasan ka cabsanayna madaxweynaha waxaan leenahay waa legacy inuu ka tagaa muhiima oo uu ku caawiyo ra'iisul wasaaraha uu baarlamaanka hortiisa ugu wareejiyay arrimaha amniga doorashada iyo doorashadaba inuu ku caawiyo oo waxaan dambayna wada tahay oo uu xasuusnaado badan guushan aan gaadhnay oo madaxweyne xasan waqtigiisii la gudbiyay oo dadkii ka sii horeeyay dawladii shariifna ay dacwad ka keeneen oo ay ka diideen Kenya inaan difaacno ayaa ka muhiimsan in olol laga dhigo marka haddii Kenya maanta aan ognahay anigoo xad ka soo jeeda Jubbaland xadkeeda ciidamadeedii badda ay soo xoojinayso oo xadkii imaanayso barbagaadha sameynayso marka ma mudno in dib loo dhigo waxa muhiim ah dawlad sharciyad leh oo difaaci karta in laga wada shaqeeyo marka farmaajana saas hadan waa shacabka Soomaaliyeed saas hadan waa sorry heshiiskan madaxweyne farmaajo xoog dhigay moral ahaan isaga waxa isagoo la iloobay oo tabcan meeshaba ka baxay oo maamul goboleedkii tabcan ayaga si senatarka loo soo xulay ayaa tan loo soo xulay haduu diidi lahaa marka hadda isaga dib ayuu u soo noolaaday rajo ayuu helay oo xogaa waxay u tahay niyadiisa ayaa kor u soo kacday marka fursad bay u tahay marka fursadaas inuu waxa muhiim ah inuu dhaxal ka tago oo conspiracy theory-ga naga daayo oo dhaxal ka tago nasiibkiis marka inkastoo aad u adag tahay way waxa dhaweed maalmihii u dambeysay inuu tanaasulayo oo saddex musharax la hadlay oo meelaha aad ka wada maqleyseen saddexda musharax tabcan maadaama uu qoostay uu leeyahay hebel baan anagu taageerina loo sheegay oo tabcan dadkan saraakiishan CBB da tabcan say sheegayaan loo sheegay cid ay taageeri doonaan in laga aqbali waayo waxay u taalaa iyaga marka niyad jabkii ku dhacay ayaa hadda dib wuxuu soo yara helay xogaa macnawiyaad ayuu soo helay
waa madaxweynihii hore qaranka waanu tixgelinaynaa laakiin waxaa noo habboon cabsida jirta musharaxiintii dadkii actorskii dadkii meesha saamileydii ahaa oo tartami lahaa waxay u aaminsan yihiin waxay leeyihiin ma la aamini karaa madaxweynihii hore Farmaajo inuusan ku qabsan doonin wasaaraha inuu doorashada qabto